بسم الله الرحمن الرحيم. maanta oo ay taariikhdu tahay 22ka bishii tobnaad 2021 maalin khamiis ah waxaa ilaahay mahadiisa inay soo gabagabowday ayna soo dhamaatay kala aragti duwanaashihii muddada bisha iyo waxa la jira socday oo ku saabsanaa arrimaha hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed iyo hay'adaha amniga waxa ilaahay mahadiisa ah si fiican oo kalsooni leh oo wanaag ku jirto in mas'uuliyiinta ay ku soo gabagabeeyeen dadaal dheer iyo isku dayo tiro badan oo aan sameynay. waxaan rabaa inaan inta uga mahad celiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo runtii qaatay door dawladnimo iyo door tanaasul iyo dulqaad iyo in dalka uu horay u socdo sidaas oo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo asagana mas'uuliyadda ugu fiicnayd iyo tanaasulka ugu fiicnaa iyo isafgaradka ugu fiicnaa sameeyay asagana waa u mahad celinayaa. runtii waxay ahayd arrin dadka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan ay ka muujiyaan dareenkooda ayna aad u dhibsanayeen marxaladan iyo waqtigan hadda lagu jiro in ay sii taagnaato ama ay madaxda dawladda ay kala aragti duwanaansho ay sii jirto. qof kasta oo Soomaaliya meel walba uu joogo aad buu uga xumaa. runtii way dadaalayna sameeyeen ducayna sameeyeen aad ay ugu mahadsan yihiin dadaaladii iyo ducadii ay sameeyeen intaba ilaahay waa aqbalay. nin kastoo mas'uul ah oo ka qayb qaatayna aad u mahadsan yahay. caawana waxay ku dhamaatay si nabad iyo kalsooni iyo wada shaqayn iyo mas'uuliyadeed oo dawladnimada la aadayo horeyna loo soconayo dalkana uu doorasho galayo. waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaysan mar dambe aysan nagu soo noqonin wax kala aragti duwanaansho ah ma dhamaato laakiin marxaladda hadda lagu jiro in kala aragti duwanaansho intaan nooga ekaato horeyna loo socdo dalkana uu galo doorashadina la aaday insha Allah tacaala sida ugu dhaqsaha badan. runtii waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo dadaalkii maalintii hawsha ay bilaabatay ilaa iyo maanta oo la soo gabagabeeyay uu ka geystay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ahayd maalintii ugu horeysay oo kala aragti duwanaanshaha timid inuu ka soo baxo Galmudug oo Samareeb anigana aan ka imaaday Istanbul oo aan u nimid in aan ku soo baxnay arrintan inayna sii soconin ilaa iyo maalintaas ilaa iyo maanta u taagnaa in arrintan ay ku dhamaato is-afgarad iyo xal. hadda inta uu maqnaana asaga oo shaqooyin kala haystay laakiin qadka telefoonka nagula jiray nagalana shaqaynayay qaybna ka ahaa insha Allah tacaala heshiiskan asagana aad u mahadsan yahay. shacabka Soomaaliyeed oo dhan waa u mahad celinaynaa inta nabadda jecel iyo nin kasta oo Soomaali oo arrintan ku faraxsan horaana loo soconayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.